ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa soo bandhigay dhalinyaro la sheegay inay shil dhac u geysteen suuqa dahabka ee magaalada Boosaaso sida faahinta warkan oo inoogu soo diray Maxamed Deeq Cabdalla oo Boosaaso warbixinta inooga soo diray taliska ciidanka booliiska gobolka Bari ayaa gudaha saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso ku soo bandhigay laba nin oo magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Foos Cartan iyo Cabdiraxmaan Cumar Dhaaye kuwaas oo dil iyo dhac ka geystay suuqa dahabka ee magaalada Boosaaso labadan dhalinyaro ee maanta lagu soo bandhigay ayaa waxa goobta lagu soo bandhigay goobjoogka mas'uuliyiinta degmada Boosaaso iyo qaar badan oo kamid ah saraakiisha laamaha ammaanka ee dawladda Puntland labada dhalinyaro waxay shalay gudaha suuqa Boosaaso gaar ahaan qaybta dahabka lagu iibiyo iyagoo wada qori ay ku dhiceen laba haween oo kamid ah kuwa dahabka iibiya iyagoo sidoo kalena dhaawacay haweeney kale oo lagu magacaabi jiray Caasho Cali Shire oo markii dambe u geeriyotay dhaawacii soo gaaray taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Bari ahna kusimaha taliyaha gaashaan la dhexe Axmed Yuusuf Muuse ayaa ugu horeyn arinkan ka hadlay waxa uu ciidanku booliisku waa laga howlgalay waa la raadiyay ilaa ay xal la raadinayay saaka 2 saac iyo 5 daqiiqo waa la qabtay gacanta lagu dhigay nimankii alaabta qayb kamid ah waana xiran yihiin waa aragtaanin intaas waxa ku soo garsay ciidanka booliiska Puntland hasaatee waxa way Puntland waa markii ugu horreysay waxaan ka dhacan waa markii wada ka dhacan way markii koowaad ka dhacana waa la soo qabtay labadii nin qorigay iyo wixii ay siteen oo macnaha ay dhaceen oo qaateen waa la soo qabtay wixii ka dhiman insha Allah oo hantida dhacayna insha Allah waa lagu daba jiraa duqa Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan ayaa ducdiisa ku amaanay ciidamada ammaanka sida ay uga jawaabeen dhacdadii shalay ka dhacday suuqa magaalada Boosaaso waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa uguna bogaadinayaa ciidanka amniga degmada iyo gobolka hawshii fiicnayd oo xirfad lahayd oo ay ku soo qabteen dambiilayaasha aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka siisay qabashada iyo ku guulaysiga dambiilayaashaasi la soo qabto waxaan aad ugu faraxsanahay kalsooni fiicanna ku qabnaa in ciidanka Puntland gaar ahaan kuwa Boosaaso hadda jooga inay si fiican oo aad iyo aad aan oran karo kalsooni iyo isku halayn badan bay u leeyihiin amniga magaalada Boosaaso labada haweenka ee dhaca loo geystay oo lagu kala magacaabo Canab Jaamac Cabdullaahi iyo Saadiya Cabdi Diini ayaa sheegay ragga la soo bandhigay yihiin dhaca iyo dilkaba geystay iyo ka waramay sida ay wax u dhaceen marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo nagu guuleeyay in dadkaas nafteena naga gooyo maalkayga naga dhacay Ilaahay noo soo sakhiray in la soo qabto xilli waxay ahayd duhur iyo casar u dhaxaysa dadku ay rawaxeen meheradaha dumar iyo adigu dad kale oo rag ah oo iska bahalkii waa la joogay nimanka burcadaha noo yimid dabatana qoriyaan ugu qabteen aniga gabadhaas waxay naga dhaceen waxaanu hanta haysanay marka ka bacid way gabadhan xabada ku dhuftay kii u horeeyay baan haay xabada dhuunta laga saaro aniga iyo gabadh baa wada sheekaysanaynay gabadha kale oo ila socotaana waa dhinac iyaga jiiftay dabadeed ninkaas aan hansaab gareeyay ka marka hansaab gareeyay waa ninka qoriga sitay oo weyn ninka kalena bir buu la dhacay dhalooyinkii hadda dahabkii bay gurteen annagana wayna hansaab gareeyeen hawshoodii markay naga fushadeen bay gabdhihii waxay ku rideen dab xidh bay ku fureen saasay gabadha kalena ku dhimatay halkan dhaca bareerka ee ka dhacay suuqa dahabka ee magaalada Boosaaso ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay ee suuqaasi laga geysto inta loo gahay waxaana saraakiisha ammaanka Puntland ay wacad ku mareen ay ka hortagi doonaan tallaabo kasta oo amniga Puntland wax loogu dhimayo Maxamed Deeq Cabdalla TV-ga caalamiga Somali Channel Boosaaso ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ayaa soo bandhigay dhalinyaro la sheegay inay shil dhac u geysteen suuqa dahabka ee magaalada Boosaaso sida faahinta warkan oo inoogu soo diray Maxamed Deeq Cabdalla oo Boosaaso warbixinta inooga soo diray taliska ciidanka booliiska gobolka Bari ayaa gudaha saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso ku soo bandhigay laba nin oo magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Foos Cartan iyo Cabdiraxmaan Cumar Dhaaye kuwaas oo dil iyo dhac ka geystay suuqa dahabka ee magaalada Boosaaso
labadan dhalinyaro ee maanta lagu soo bandhigay ayaa waxaa goobta lagu soo bandhigay goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta degmada Boosaaso iyo qaar badan oo kamid ah saraakiisha laamaha ammaanka ee dawladda Puntland. labadan dhalinyaro waxay shalay gudaha suuqa Boosaaso gaar ahaan qaybta dahabka lagu iibiyo iyagoo wata qori ay ku dhiceen laba haween oo kamid ah kuwa dahabka iibiya iyagoo sidoo kalena dhaawacay haweeney kale oo lagu magacaabi jiray Caasho Cali Shire oo markii dambe u geeriyootay dhaawacii soo gaaray. Taliye ku-xigeenka